الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. walaalyaal meel walba aad joogta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. waxaa walaalyaal inoo bilaabanaysa insha allahu tacaala bishii barakeysnayd ee ramadaan, bishaas oo wadato barakooyin aad u fara badan, loona baahan yahay in laga faa'iideeyey ilaahay idinkii waqtigana ilaahay subxaanahu watacaala looga faa'iideysto, sababtoo ah dad badan ayaan u helin fursad ay kusoo gaaraan bishan barakadeeda iyo baraadhaheeda. dad badan oo noolaa sanadkii hore ee ramadaanta oo waxaa jira hadda aan fursad u helin oo ciidda ka hooseeya. dad badan oo caafimaad qabay ayaa jira walaalayaal oo hadda aan caafimaad haysanin, oo caafimaadku uu ka maqan yahay, oo xanuunsan oo isbitaalada jiifa. waxaa sidoo kale jira walaalayaal dad aan waqti u haynin oo fursadii ay cidhiidhi kaga jirto ama xidhan ama si kale ay maaragtay aan awoodin oo safar ku jira. marka walaalayaal waxaan leenahay fursadaas waa in laga faa'iideeya bisha ramadaan. barakaad aad u fara badan ayaa ku jira, khayr aad u fara badan ayaa ku jira. khayraadkaasina maaha mid lasoo koobi karo. rasuulkuna wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam: man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban qufira lahu maa taqaddama min dembih. qofka sooma bisha ramadaan iimaanan waxtisaaban, isagoo iimaanka gelinaya oo iimaaninaya, oo sidoo kale ixtisaaban ilaahay subxaanahu watacaalana ka raadinaya ajar, qufira lahu maa taqaddama min dembihi. waxaa loo dhaafayaa dembigiisii horey ayaa loo dhaafayaa. sidaa awgeed walaalayaal bishan barakaad aad fara badan ayaa ku jira. waa inaan qur-aan akhriska badinaa, waa inaan maaragtay aan ka faa'iideysanaa barakaadka bisha ramadaan, waa inaan afurnaa dadka aan afurka awoodin, waa inaan sidoo kale khayrka mar walba u degdegnaa oo dad khayrka u degdega aan noqonaa. waa in laga faa'iideeyaa maaragtay ducada, waa in laga faa'iideeyaa maaragtay salaadaha, oo aad maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala ducada loo badayo, ilaahay loo baryaa. marka walaalayaal khayrkaasaan jeclaystay inaan dila wadaago. khayr badan baan idin rajeynayaa, aad baan idin salaamayaa. ilaahay subxaanahu watacaala bishan barakeysan barakedeed hana siiyo. barakaad badan iyo nafaxaad badan baa ku jira, oo uu ka mid yahay laylatul qadri khayru min alfin shahri, habeenkii khayrka badnaa ee kunka bilood ka khayrka badnaa. tira ahaan marka la yidhaha hal xisaabiyo dhowr iyo 80 sannadood noqonaya ilaa 83 sannadood iyo bilo dheeriya. marka walaalayaal insha allah aad ha looga faa'iideeyo, qalbigii niyadana ha loo furo. qofku waa inuu la yimaadaa qalbi saafiya, niyad saafiya. ilaahay subxaanahu watacaala oo qalbigiisa niyadiisa u furaa. mar walbana aad noqotaa qof ilaahay subxaanahu watacaala ku xidhan, oo qalbiga ku haya, oo niyadda ku haya, oo qalbigiisu furan yahay, niyadiisu furan tahay, oo ilaahay subxaanahu watacaala ku xidhan, oo khayrkaa rajeynaya, oo niyadda ku haya. marka walaalayaal aad baan idin salaam. assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.